magaca Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Barakeysan. Daawadayaal dhegeystayaal, waa mar kale iyo Psalm-ka barakeysan ee David. Waxaan idiin soo diyaariyey chapters ka mid ah qaybta koowaad, bal hadda aynu bilaabno. Psalm. Xaqiiqdii ma jiro nebi aan Jesus ahayn oo weligii dembi la'aan ahaa. Tani macnaheedu ma ahan inay daruuri ahayd inay ku noolaayeen caasinnimo la og yahay oo Ilaah loo sameeyay. Taas beddelkeeda waxay ka dhigan tahay inay had iyo jeer u furnaayeen suurtagalnimada daacadnimo, is-hoosaysiin, iyo la'aanta hoggaansanaanta Ilaah. Rabbiyow, waxaan leeyahay cadow faro badan, kuwo aad u badan ayaa aniga iga dhan, kuwo tiro badan ayaa dhahaya, Ilaahay weligiis ma badbaadin doono asiga. Laakiin adiga, Rabbiyow, waxaad tahay gaashaan igu wareegsan, waxaad tahay ammaantayda. Kan madaxayga kor u qaada. Waxaan u kayshaday Rabbiga, wuxuuna iiga jawaabay buurtiisa quduuska ah. Waan jiibsaday oon seexday, haddana si ammaan ah ayaan u soo toosay, waayo Rabbigu wuu i ilaalinayaa. Aniga kama cabsanayo 10,000 oo cadow ah, 10,000 oo cadow oo dhinac walba iga hareereeya. David wuxuu ka ducaystay cadaawayaashiisa, wuxuuna ku tiirsanaa Ilaah inuu ciqaabo ayaga. Wuu ka gaabsaday inuu iska aarguto sida Moses u baray ilmo Israa'iil inay tahay dembi in la aarguto. Jesus wuxuu qaaday tallaabo dheeraad ah. Oo wuxuu baray in carruurta Ilaah ay u duceeyaan cadaawayaashooda oo ay tusaan jacaylka Ilaah. Psalm wuxuu ina barayaa sida New Testament-ka Axdiga Cusub uu leeyahay. Romans 10:13. Dhammaan kuwa ku barya magaca Rabbiga Kiristiga way badbaadi doonaan. Xitaa ka hor imaatinka Kiristiga, waxaa suurtagal ahayd in lagu baryo magaca Rabbiga. Aniga kama cabsan doono Shaytaan. Ileen Rabbiyow, waxaad tahay gaashaan hareerahayga ah. Habeen iyo maalin adiga ah rajadayda kaliya. Fadlan had iyo jeer halkaa joog. Duco. Ilaahayow, fadlan gaashaankayga noqo. Psalm 4. Ilaah wuxuu Abraham u sheegay inuu allabari u bixiyo wiilkiisii uu jeclaa Ismaaciil. Ilaah wuxuu isticmaalay adeecida Abraham si uu u diyaariyo micno muuqda, halka dadka dambiilayaasha
heli karaan cafiskii iyo naxariista Ilaah. Malaa'igtii Ilaah ayaa soo faragelisay Abraham si Abraham u bixiyo allabari kale, laakiin Ilaah wuxuu ku tilmaamay mid xaq ah iimaankiisa awgiis. Wuxuu ku kalsoonaa Ilaah inuu wiilkiisa ka sara kiciyo kuwii dhintay haddii ay lagama maarmaan tahay, waayo Ilaah wuxuu Abraham u ballan qaaday in farcankiisu uu barakeeyo adduunka. Ahdiga Cusub New Testament wuxuu shaaca ka qaaday in Kiristiga la doortay ee David ku sheegay Psalmka 2 uu yahay Jiisuska reer Nazareth, oo ah habka xaqnimada Ilaah loogu siiyo kuwa isaga u hoggaansama. Sidani waa adeecida runta ah. Psalmka barakeysan ee David Zabuur. Sidani waa sida David u rumeeyay Ilaah ku tilmaamay asiga mid aan eed lahayn. I jawaab markaan ku yeerto Ilaahayga igu tilmaama aniga mid aan eed lahayn. Fadlan iga xoree dhibaatooyinkayga. Fadlan ii naxariiso oo baryadayda maqal. Ilaa goormee dadkiinaan burburin doontaan sumcaddayda? Ilaa goormee samayn doontaan eedeymo aan sal lahayn? Ilaa goormee beentiina sii wadi doontaan? Waad hubsan kartaa tan, Rabbiga nafsad ahaan wuu kala saaray quduusiinta. Rabbiga wuu ii jawaabi doonaa markaan u qayshado. Fadlan ha dembaabina idinka oo u oggolaanaya xanaaqa inuu idin xakameeyo. Fadlan ha dembaabina idinka oo u oggolaanaya xanaaqa inuu idin xakameeyo. Ka fikir habeenka oo dhan oo aamusa. Fadlan yabooh allabari si ruux sax ah oo ku kalsoonow Rabbiga. Boqor Nabi David wuxuu nagu dhiirrigelinayaa aayadda 4 iyo 5 inaan ku kalsoonaano Ilaah oo aan si aamusnaan ah ugu fikirno isaga, cabsi iyo ammaan iyo mahadnaq qalbiyadeena ku jirta. Nashiido Psalm ah. Rabbiyow i caawi inaan ogaado joogitaankaaga wareeggayga maalinlaha ah. Dhammaan meelaha ugu sarreeya iyo kuwa ugu hooseeya dhammaantood waxay u adeegaan runtaada. Sidaa darteed, sii nimco aan ku muujiyo in nolosha oo dhan ay jirto waddo. Murugada waxaa lagu buuxin karaa rajo. Duco. Fadlan ahaaw agteyda eebed Rabbi Ilaah. Amiin. Halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa maanta Psalmkan idiin soo diyaariyey. Fadlan rukunsada channelka, like na saara, subscribe dhaha. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Mahadsanidin. Bye.